jidka xataa kaaga hormaanaysaa gabar huruud umarsan tahay ama qasil umarsan yahay ama kareemadii maxay ahayd ciidka wajiga lagu dhaqana umarsan yahay wixii xaraga ah iyo wixii isku qurxin ah guriga iskale ma lahan suuqan hala soo aadin magaalada hala soo aadin baraha bulshadana adaa wax kuu marsan yihiin hala soo gelin gabdhahow is asturaadaad qiimo ku leedihiin isqariya qarintaad qiimo ku leedihiin marka labadii markaa isku soo boodaan oo mid la rifo oo tinta looga dhego inay dhimataa dhici karto inay waadataa dhici karto madaxa ka qafiifto madaxa looga garaaca burus jag miga daba haraysa mi yeelaysa maxaa kaa daba dhiga jag oo gabadha ama waa waalan karaa qofki waa dhiman kara diyadeeda kugu wajibi bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dhammaan walaalaha way islaam meel kastoo joogtaan waa barnaamijka safiirka islaamka duruusteena wacyigelinta ahayd maanta kelmadeena ama furtiinteena waxay ku socotaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kastoo jooga walaalaheena mar walba anaga waxa u taaganahay sharafta iyo ilaalinta maxay tahay wacyigelinta bulshada kelmadu waxay ku saabsan tahay gabdhaha isoo muujinayo quruxdeeda banaanka soo dhigayso ama TikTok soo dhex dhigayso TikTok maanta waa aalad ummadii sameysay dhanka khayrka u adeegsanayeen dhanka ummadooda ka horumarkooda tiknoolajiyad iyo qurux iyo xirfado iyo ilmahooda lagu barayo soo qof gurigiisa jooga laakiin anaga wasaqdana loo soo geliyaa dowladteena kontarooleysa meel Afrika markii la joogo wax walba qashina la soo geliyaa marka waxyaabaha uu soo kordhiyay waxa kamid ah in dadkii dhexdooda isku caayaan oo marka laba gabdhood is caynayso oo is aflagaadeynayso oo meel ka dhac iyo sharaf darro isku sameynayso inay TikTok ka soo muuqdaan oo tan kala caynayso oo nasabkii la isku caynayo oo gabadha suuradeeda isku caynayo oo marka taa aadi marka sharaf kuma aha quruxna kuma aha waad ku qiimo beelaysaa marka aaladan social media dhan soo hor u sheegay dhanka khayrka u isticmaal markii la isku caayo hadana waxa gabadha quruxdeeda banaanka inay soo dhigto oo isoo muujiso oo iyadoo qaan ka soo muuqato oo hadda sheekada waxay maraysaa iyadoo wax u marsan yihiin inay aalada TikTok soo gasho oo marka iyadoo wajigeeda wax marsan yihiin oo ka maxay tahay iyadoo huruud u marsan tahay wajiga ka soo muuqato ama kareem wajiga oo maxay tahay waxyaabo gabadha wajiga ku quruxsanaysa intay soo saarto ilaahna wala yubdiina ziinatahunna ilaa libuulatin quruxdaada gurigaada iyo ninkaada gaar u tahay hada kullama quruxda soo dhigto wasaa u sheegna waa nanac qorafta laga fiiqay cid cunaysa male marka quruxdaada qarso banaankana jidka xataa kaaga hormaanaysaa gabar huruud umarsan tahay ama qasil umarsan yahay ama kareemadii maxay ahayd ciidka wajiga lagu dhaqana umarsan yahay wixii xaraga ah iyo wixii isku qurxin ah guriga iskale ma lahan suuqan hala soo aadin magaalada hala soo aadin baraha bulshadana adaa wax kuu marsan yihiin hala soo gelin sharaba waxay ahayd waxa ku caro ilaah ka raaxaysan nabiga alayhi salaam wuxuu dhahay sinfani min ahli nar hore laba sifo ahli nar kamid ma arkin nisaa'un kaasiyatun caariyat gabdha dhar qabo dharna aan qabina qaawan madaxooda uu kuusan yahay ru'uusuhunna ka asminati al-buqti al-maa'ila laa yadkhuluna al-jannata walaa yajiduna riixa marka kullama gabadha asturan tahay kullama gabadha maxay ahayd isqariso kullama maxay tahay xushmad iyo xayaa oo leedahay kullama ay qiimo ay leedahay quraanka waxa Allah ku sheegay gabar xishood badan fajaa'atu ihdahuma tamshi ala istihyaa ilaahay xishoodkeeda uu ku siiyay nabi Muuse nabi gurigeeda uu keenay oo marka uu guursaday xaas u noqotay taas waxa la mid ah gabar boqorad ahayd oo qasri degan oo dawlad ku dhex jirto oo talinayso oo ninkeeda boqor yahay oo maxay ahayd wiil yar oo gurigeeda jooga inta isku qurxisay abaabada xirtay hadana ay tirkayta la ka waraawada lati huwa fi baytiha عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك مكا ويدم علي نبي يوسف يدم شوف شرط درجة حتى إله سبحانه وتعالى قرآن كوشيء كبر قصة اسمه جصاص أقيم بيلي سامركا إلى يومنا هذا قرآن قرآن كسؤال ومحنت ولا أخرنا ما أنت أنا موجه تقف أنت أدوك كتيوان مكا هيت لك قال معاذ الله وير مكا قرآن مكا اسمه جساني مكا مرابان اعترب تملا ويقيم بيلي سا وحاب قيمة كل هذا شرف كل هذا إن أسطران تهي إن قروح هذا قوقر صان تهي ina guriga isku xaragaysid ina guriga waxa ku marsatay catar haday kareemta hadii waxyaabaha la isku dhaqatahay kullu shay guriga ala banaanka u soo bixin ada waxa isku marsan yihiin ama bala bulshada ka soo muuqanin ama maxay ahayd wajiga haruud ku marsan tahay ama kareem ciid ku marsan yahay ama qasil ku marsan yahay xaraam عليك marka waxa kale oo lamid ah dagaalka baraha bulshada ka socdo dagaalka baraha bulshada oo la isku caaynayo مثلا laba qof oo laba magaalo waaweyn oo Yurub ama Mareykan kala joogan way isku imaanayaan say isku caayaan ama kala ceesh waxa dad fiisa lagu raadinayo ama magac lagu raadinayo marka waa fool xumo kala eedan oo tii hore ka sii xun marka dagaalka oo baraha bulshada isku sameynaysan maxaa qiimo ka soo kordhay
maxaa haddaa maxay ahayd aad rabto inaad baraha bulshada kasoo muuqato wax wanaagsan uga soo muuqo dadka iyaga iska kaa baranaya caannimo waxba gooni kuma soo kordhinayso marka caan noqo hal ugu fiirsado adoo caytamaysid dhanka cayda kusoo gal dhanka markaa kusoo gal qiimo dhacday kaa raacay qoyskiina sharaf dara usoo jiidaysaa qoyskiini walaalaha raggi kula dhashay iyo raggii ku dhalay iyo raggii kugu abtirsanaya intaba sharaf daray u tahay gabadhoodii baraha bulshada ka caytamayso oo gabadh kale dagaal kula jirto ama maxay ahayd dukaamada la isugu imaado la isku caayay oo laba gabdhood meesha lagu kala furay kulli waxaas oo dhan akhwaad waa shaqool xumo waa akhlaaq xumo waa baraha bulshada oo dhanka xun loo adeegsado u adeegso dhanka wanaagsan maxay ahayd dagaal asal ahaan shariicada waxay ahayd labada muslim qof haday isdilaan oo maxay ahayd nabigu uu diiday alayhi salaam idaa waqaca almuslimuuna bisayfihima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar labada muslimiinta haday isku soo jeestaan kan wax dilay kan la dilo maxay tahay labada naarta galayaan allah kan wax la dilay kan wax dilay waa garanay kan la dilay maxaa dhacay li'annahu kaana xariisan fi qatli akhihi asma wuxuu ku dadaalaa walaalkiis inuu dilo marka labadii markaa isku soo boodaan oo mid la rifo oo tinta looga dhago inay dhimataa dhici karto inay waadataa dhici karto madaxa ka qafiifto madaxa looga garaaca burus jag may ka daba haraysa may yeelaysa maxaa kaa daba dhigay jag oo gabadha waa waalan karaa qofkii waa dhiman kara diyadeeda kugu waajibaysa marka gacan qaadka muslimiinta gacanta isku qaadaan shareecada waa diiday qof muslimna u gacan qaado almuslimu salima almuslimuuna min lisaani muslimka mid ummadda ay ka nabad gasho marka dagaalka baraha bulshada iyo dagaalka goobaha inta laisugu imaado laisku balansanayo ayadana waa fidno kala soo korortay marka adinka isdagaashaan qoysaskiina waa isdagaalayaan walaalihiin waa isdagaalayaan waalidiintiina dhan waa isdagaalaya bal qabiiladiina ay kasoo jeedaan qabiilka gabarba qabiilka ka dhagata qabiil kale ayaa qoorteeda kale marka colaada markasta waxaa fiican in nabad lagu bedelo marka waxay hato sharaftiina iyo quruxdiina waxay ku jirtaa inaad gabar dhowrsanaato oo gabarnimada wada dhaafin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.